بسم الله الرحمن الرحيم لحي tobankii bisha afraad ayay ahayd markii loo magacaabo guddigan doorashada guddoonka aqalka sare ilaa iyo hadda shaqooyinkan si wanaagsan ay ku soo dhamaadeen maanta oo ay tahay 26 bisha ayay ahayd baranta jadwalka inay ku qabsanto guddoonka doorashada aqalka sare si wanaagsan ay u socotaa sida haddaba arkaysaan waxaan rajeynayaa insha Allah waqtiyada soo socoto in baarlamaanka aqalka sare uu yeelan doono guddoon hadduu Ilaahay yiraahdo insha Allah ilaa iyo 12 musharaxa iska diiwaan gelisay oo kursiga guddoomiyaha iska diiwaan geliyeen 3 musharax gudoomiye ku-xigeenka koowaad iska diiwaan geliyeen 2 musharax iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad iska diiwaan geliyeen 7 musharax si guud marka dadka iska diiwaan geliyay tartamista guddoonka aqalka sare waa 12 musharax saaka waxa lagu qabanayaa doorashada xarunta afisoni waxa jira waxa qabada uga kulanteen intii maaragtay socotay qabada doorashada ama ilaa saakid laga soo gaaray maya sida la socotaan hoolka ama fadhiga baarlamaanka aqalka sare waa meel aad u kooban meeshan waxa ku soo dooranay nambarka koowaad in marti badan aan ku casuunay si loo arko doorashada meeshan ka dhacaysa tan koowaad taas ah wax caqabado ilaa hadda aan la kulanno ma laha aad u mahadsantihiin وتهي بل يا اللي كل سوق الجلاء ما أنت مركز في رسم كذا كلا كبر حرنا عقب سنة يعني كل سوق الجلاء إلا يصدح بقولوا قفان كوعزوني إن دور شذا يكسر الجلان وهي هذا كل دول الدولة يسركيش إذا ماذا هي هذا انترناشونال كعدمان يكسر الجلاء هذا مرسي